iyadoo ay maanta ku beegan tahay maalinta la aasaasay dalladda iskaashatooyinka kalluumaysiga qaranka ee Hibo ayaa waxaa munaasabada ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xubno ka kala socday Jubbaland, Galmudug, Hirshabelle, Puntland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay oo bulshada ka soo qayb gashay munaasabada faahfaahin ka siiyay Cabduqaadir Saciid Samadar gudoomiye ku-xigeenka dalladda iskaashatooyinka kalluumaysiga qaranka. iskaashatooyinka hadda siday u shaqeeyaan waa firdi bal in la sameeyo dallada midaya ida iskaashatada danahooda in la helo waayo dadku inuu u socdo firdi ama koox in mujtamac loo socdo ayaa ka faa'iido badan. sidaa darteed waxaan garanay in alla intii isfahmi kadha oo wax wada qabsan kartaa inay dallad sameeyaan ma dalladu wax xiran oo cid yani meel ugu xiran waa dallad furan waxay u furan tahay qof kasta oo ka mid noqon kara oo finna kara shuruucda iyo nidaamka dalladda u degan waa ka soo qayb gali karaa. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mas'uuliyiin ka kala socday dowlad goboleedyada waxayna hambalyo iyo bogaadin u soo jeediyeen dalladda iskaashatooyinka kalluumaysiga qaranka ee Hibo. waxaa salaan iyo hambalyo aan u gudbinayaa dhammaan kalluumaysatada badda iyo kuwa biyaha macaan ee dalka Soomaaliya kuwa oo maragta Ciraaq waana la soo tusi iskaashatooyinka waxay tareen iyo waxay qabsadeen aan soo aragnay anagana maanta ma ka dhaqaaqayni intii noolnahay iskaashatooyinkaas aan soo aragnay waxay qabsadeen ilaa aan ka qabsano iyo anagana diyaar u nahay. muhiimka meesha aan kaleenahay ma aha mid intaan ku kooban Soomaaliya oo dhan ayaad shaqada aad qabateen u haysaan dadka Soomaaliya meel kasta ay joogaan iyo gobol kasta ay jiraan. marka Xasan Maxamed Rooble gudoomiyaha dalladda iskaashatooyinka kalluumaysiga qaranka ayaa sheegay in sanadkan ay ku dadaali doonaan sidii loo tayeyn lahaa kalluunka. waxaan rabnaa asigana sidoo kale in xagga muxuu ahay tayeynta kalluun tayo leh ayaa qiimo sare goynaya halku dhigeena sanadkan waa sidaas. marka sanadkan waxaan rabnaa hadii Ilaahay idmo khayrka Ilaahay waana siiyay dadkii ka shaqeey lahay badda waa noo joogaan badda waa noo taala kalluunkina waa noo yaala laakiin waxaan rabnaa sanadkan inuu noo noqdo sanadkii tayeynta kalluunka. ugu dambeyn waxaa munaasabada ka hadlay Maxamed Xuseen Ibrow wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Koonfur Galbeed ayaa u mahad celiyay iskaashatooyinka kalluumaysiga qaranka Hibo shaqada ay qaranka u hayaan asagoo tilmaamay in dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay dadaal ugu jiraan sidii kalluunka loogu dhoofin lahaa dalalka dariska ah ee Kenya iyo Ethiopia. Hibo waxaan ugu mahad celinayaa hawsha weyn ay wado wacyigelinta ay wado isu keenida mideynta walaalaynta guud ahaanba iskaashatooyinka say u dhan yihiin oo dhinaca kalluumaysatada ah. waxaan kala idinku sii daraa fursad waxaa haysataan hadduu Ilaahay saamaxo wadamada dariska waxay u baahan yihiin kalluun. maanta Jubbaland waxay rabtaa inay samayso xiriir in la samayso Kenya si kalluunka laga qaado Jubbaland loo geeyo suuqyada maxay yiraahdaa wadanka Kenya. annagana South West waxaan diyaarsanay mid Ethiopia in la geeyo. marka nasiib waxaan rabnaa mustaqbalka kalluunka meel walba inuu gaaro ilaa Afrikada gudaheeda inaan tagno kalluunka inaan geynaan aan ku rajaweynaa. taasna waa imaanaysaa waxay ku imaanaysaa annagoo iskaashana is-aamina is-walaashana horumarkan inaan ku dadaalno. Cabdullaahi Maxamed warbaahinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada Muqdisho.